hal sano dhan ma dhihin hooyo ma dhihin. maalin waxaa dhacday wallaahi been ma idin sheegaa, hooyo waxay igu dhahday Naciimooy gabadhan hooyadeedaa dhimatay ilaa haddana may ka samrin, maalintay dhimatay ilaa hadda meelahay soo dhigdhigoosaa. wallahi inay wax kale igu dhihin like hadda yaa u sheegaan inaan samir la-ah oo waxaa sameeyaa garan la-ah. markasto qalbigeyga hooyo maka baxayso, wax walba haddaa sameeyo maxaa sameeyaa ii sheega, waa tukanaa markaasaa u istaago qofkii ugu horey qalbigeyga kusoo dhacayo hooyaday noqoneen. والله أنا هو إذا أحس هو إنا روحت أحس أدقف والبوين هو إنا دهش على سنة. marka meel tago oo teleefonkeyga dadka igu arkaan waxay dhahaan ba teleefonkan quruxda badan yaa ku soo gaday waxa samtin dadka marka dhaho aabahay ii soo gaday way yaabaan waxay dhahaan Allah abuk jeclaaysta why not aabahay aan ii jeclaaba gabadhiisa dhanahay xala u sheegay marka waxaan dhahay aabo la dadka intaas ay dhahaan waxaan ku jeclaabay gabadhan Naciimo qurux ee qaranjaad soo dhahay oo reer dhan iga heeso dhahay seen ku jeclaan waayay wala aabahay aan markuu dhaho ku jeclaa farxad weyn aan dareemay ma dhahay istaxan soo waxa ku dhahay abba ma dhinta kasoo aanay daawadaas ma cuni karin kasoo dhahay un daawada maxaa ku dhacay wadnaha xanuujinin naftaada soo moogdina ani ka jeclay oo dhahay wallahi waalid zaid oo farxay like ana inta zaid farxad weyn aan dareemay ku aabahay nafteeda ani ka jeclaa soo ila aabahay iideeso dunyada weeyay waa ka wadatay aabahay cimri caafimaad si naagteedana saan iisoo